إيمانك شيء قرا لقو قبو باين الرحمن كقول كيف ما صور مقايبة قول كيف فردوسية شنو قورسن وليجية قانقار هدي آتيهين قيرا لقو بيري وحيجينا قيمها كسوغن قورسك إلاشا قرآن كي يسنها الله يسكول ريان لك لقادين قادا ديقودا نبرتي يسيدا وحلوقيحو أو تفسير كوال لقو قيافر قلوبتينا قياما حقي سادوان لوق القلياي دديو قادر كيني وعنا قاتا أمر كيسا. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم ما بعد وسورة البقرة آيات الله بقولي لحيتها قال الله تعالى إلهي بأوحر كتب عليكم القتال جهاد باليدن كواتبي وهو كره لكم جهاد كان ونعي سانو متشعلدين وعسى وحرب أن تكرهوا شيئا إنا وحن عظام بارضبه وهو خير لكم يساقون أيدين في عين وعسى وحك الأرضبه أن تحبوا شيئا إنا وحجعلاتان وهو شر لكم يضعوا يدين حيه بلاي يدينيه والله يعلم إلهي بأرمها قنتو دي حقائق وذا أكسون وأنتم لا تعلمون يدين كونا ما أكسون يدين يسألونك وحي كويدين يا عن الشهر الحرام بلها حرمة له هي كويدين يا قتال فيه الدجال لحظة ودرعي كليهين ما هجاكسية ما صحبة قل وحت لا قتال فيه دجال بلها حرمة له لحظة ودرعا كبير هرتواوي تاهل كاكده وسد هرجوكس عن سبيل الله دينت إلهي دتك لغا هرجوكسدو وكفر به إلهي لغا قالوبه والمسجد الحرام مسجد كي حرمه لهايو لغا قالوبه وإخراج أهله أهل كيسي مسلمين تهايو لغا سارا منه مساجد كا لغا فربيو أفرتنو استسارا با أكبر عند الله إلهي أكتيس كوين تاهر يشاكته والفتنة بلايدنا أكبر من القتل ويكوين تهي ديلك إيا مشاده تقالك لغو لمريو ولا يزالون قالوا دين مايان يقاتلونكم من إذلات دقالمان حتى يردوكم تيرا إذن كعليان عن دينكم دينتين تيرا إذن كعليان إذن كساران وسين استطاعوا هذا كرام ومن يرتدد منكم قفك إذن كم إذا كان نوضة عن دينه دينتي سي إسلامك كبحة فيموت دينته وهو كافر يسوق قالهم توبت كانين فأولئك ضدك النوع عاصة حبضت أعمالهم عمل ذو ذي ويبورينا وحبك ما تشران في الدنيا والآخرة الدنيا ذا نوي كبران آخرنا وحبك كما تشران وأولئك كواس أصحاب النار نارتا أي لساحبه ني كتران هم فيها خالدون وانا كواريا لو كا آيات دي آيات صوص عطابة واحد الماميان جهاد كيبا دب إلهي ونقص عليه أحكام تيسي iyadoo munaasabada aayadaha hore ka dhaxaysana ay noqonayso iyo aayadaha dambe imtixaanka dadku ay ku jiraan iyo cabsida ay cadowga ka qabaan waxa ay kaga nasan karaan iska celin inay wax iska celiyaan amarka ilaahayna qaataan awoodna ay yeeshaan difaacana diintooda iyo dadkooda iyo dalkooda ummadii buu ilaahay la hadlo wuxuu sheegay cibaadada in la yiraahdo jihaadku nafiya maalba lagu dagaalamo oo cadawga weerarka kugu aad la dagaalanto ee gaalka ah inay tahay waajib erayga kutiba waa erayada tilmaamayeen shaygan waajib yahay waxa aayada ilaahay noogu cadeeyay inuu waajibka la saaray dadka ku yahay si dabiici ahaana makruh kurhu waa masdar bimaana ism al-maf'ul kurhu bimaana makruh وكراهيسنيس dadka kolka la ila soo baxa oo naftiina qoora oo maalkiina qoora oo raaxadiina ka yimaada oo dagaalka u soo baxa te wadiga arkaya waxay dareemayaan cabsi ay dareemayaan iyo miyaynu u bareernaa u dhimashadaas un baynu u bareernaa iyo xabada dhacays cabsidaas aad jirta marka waa karaahiyadii dabiiciga ah laakiin naftu ha karaahiyaysato ee waxa ku jeclaysiinaya ilaahay baa ku amro waa ma'muur waxa labaad oo ku jeclaysiinaya dantaada ku jirta dantaada ayaa ku jirta labada arrimood waxay keenayaan inaad nafta riixdo sideedabana hore inuu soo sheegnayo
dee sidaa ilaahayba aayadda caddeeye horena aayaad ka hore aynugu soo maraynay naftu wixii danteedaa ma jeclaa arrimaha adduunyadaba ka soo qaad maalan qofku inuu shaqo tago oo kallaho oo barafka maro oo bacadka maro oo soo jeedo oo haddaba isagoo lacagtii la soo baxaya mushaharkiisii ma jeclaa wuxuu iska jecel yahay inuu iska fadhiyo oo ay isaga soo ururto iskaga dahab iyo lacag roob lacag inuu u doo qofka dabeetana uu iska raaxaysto iska dhargow sidoo kale cisigiisa isaga iyo diintiisa iyo ummaddiisa cisigu waxa uu ku jiro ilaahay agtiisa iyo ummadda agteeda sharaf ku heli kara iyo guul iyo gobonnimo taasina way ku adagtay nafta taasina way ku adagtay waa ka ilaahay tilmaamay waxa dhab ah waxaad jeceshihiin waxaad necab tihiin inuu khayr idin yahay waxaad jeceshihiinna uu shar idin yahay waa kaasoo imika waynu arkaynaa jihaadka waa la nacay oo muslimku waxay yidhaahdeen ana waxba dhaqdhaqaajin mayno waxaanu dhaqdhaqaajin karaynaa ma jiro idinkun gaalayna dhaqdhaqaajiya oo dhankaa doontaa noo riix oo na qadima oo na aakhira waa kuwaa dadkii barasaaba loo egaaday xaggaasunbaa la sii eegayaa loo kala ordayaa maxaa ka soo baxay dee dadkii iyagoo adduunyada ku nool ayaa waxay noqdeen dhaqaalihii u badnaa haystaa tamartii u badnayd maxaanku idhaahdaa dhulka halkii ugu istaraatiijisanayd ummadihii diin iyo xaq iyo qiblo ku midaysnaa ayaanay ka mid ahayn ummadaha tirsan caalamka waa kaa ilaahay leeya wahuwa sharu lakum waa midka dhabtaa weeye jira guusha iyo gobonnimadu waxay ku jiraan taa ilaahay uu tilmaamaya subxaana wa tacaala guuldarrada iyo ceebtuna waxay ku jiraan taa uu ka digayo wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun bal u fiirso macnaheedu waxa weeye idinku ma dooran kartaana ilaahay baa idiin dooraya dantaadaba ma garanaysa shay baa dhacayo markaasaad kolka hore karaahiyeysanaysaa marka dambe aad leedahay innaa lilah warshow kanaaba ii danaha warshow sidanaaba ii wanaagsan aan dhaweyd baynu maqlaynay dayuurad qaraxday nin baa ka hadhay ninkaasi markii uu ka hadhay dhulku isla dhacay intaasoo howlood baan lahaa maxaanku idhaahdaa frightkaa iga tegey yaa wuxuu iga dhigay intaasoo khasaaraa buu igu riday in yar kadib buu arkay bahashii oo gubatayba keligii baa ka hadhay haye wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun adiga markii lagaa reebayay dantaada maad moodayn waxaad islahay dadkii oo dhammi danahoodii bay qabsadeen laakiin gadaal baad ka garatay waa tusaale basiidahu marka ummaddu marka ilaahooda ku kalsoonyin waxay garanayaan in uu ilaahay wax walba u doorayo wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun waxaa haddaba rabbi uu ka hadlay ama uu ka jawaabay su-aal timid oo asxaabta ka timid oo la yidhi bili xurmada lahaa sawtii la yidhi xurmadooda hala ilaaliyo dagaalkani waa maxay jihaadkan layna faray waliyaha qaarkoodna waxay leeyihin su-aashani waxaabay ka timi gaalada oo waxay ku durayeen muslimiinta waxay idhaahdeen xaggay islaam iyo haybad iyo sharaf ku hayaan bilii xurmada lahaa bay dagaalamayaan oy dagaal xalaashadeen allah ka jawaabay waxaa markaa ilaahay uu tilmaamay hadday ku weydiiyeen bilaha xurmada leh oo la dagaalamo qitaalin fiihi bedelulishtimaal baa la yidha xagga dambea loo guuraya su-aashu bilaha xurmada leh ku jahaysani waxa weeye ma la dagaalami karaa sidee loo dagaalamay dagaalku ma xalaalba markaa ka jawaaba waxaad tidhaahdaa ha dagaalkaasi weyn in bilaha dhexdooda la dagaalamaa gef way leedahay laakiin maxaa kasii weyn wax ka weyn baa loogu dul qaadanaya hal xurmaa la jabiyey afar xurma halkan la jabiye eg xurmo un bay ahayd bilaha ahayd maxaa weheliya markii cadowgiina soo weeraru inala dagaalamay ama sidiisaba weerar inagu yahay cadowgu afartan arrimood baanu kala reebin oo ay ku xidhan tahay alhuwiyat lumma ummadda shakhsiyadeedii iyo abtirsiimadeedii iyo jiritaankeedii uu ku xidhan yahay afartaasi waa maxay waa diintii iyo dalkii iyo dadkii cadowgii intaaba uu liqay oo intaaba uu calaashaday oo intaaba uu raamsaday maxaa soo hadhay waaye diintii waa tagtay aye wasadun can sabiili illaah sabiilullaahi waa jidkii ilaahay diin lama fidin karo diin laguma dhaqmi karo diin dadka lama gaadhsiin karo nuqda halkaasay cadowgu maraya ilaahayna waa la diiday wa kufrun bihi muqadasaadkiina iyadana waa la hor joogsaday walmasjid alxaraam
oo can sabiilillaahina waad ku cadfi kartaa wa kufrun bihi damiirka ku jirana waad ku cadfi kartaa haddii can sabiilillaahi lagu cadfo waxa weeye masaajidkii baa dadkii laga hor joogaa muqadasaadkii ama laga qabsaday ama masaajidkii baa laga gaaloobay xurmadu lahaa masjidna mee muqadasaadkiinni mee wa ikhraaju ahlihi minhu masaajidka ehelkiisii iyo rasuulkii iyo asxaabtii iyo ummaddii islaamka ahayd baa laga eriyey ummaddiina meeday waa la qaxiyey waxna waa la laayay waxna waa la qaxiyey marka diini kuma noola dalna kuma noola dadna kuma noola muqadasaadkiina kuma noola bal waayo huwiyadaadu waa intaasay ku xidhanta qofka shakhsiyadiisa iyo abtirsimadiisu waxay ku xidhantahay anigu waxaan ahay qof muslima oo diinta islaamka haysta oo dadkaa muslimiinta ka tirsan oo dalkayguna waa daarulislaam intaaba marka lagaa qaado huwiyad ma lihid waxaad jiritaan ma lihid iyo cid aad ku abtirsato toona marka afartaas oo la isku daray buu ilaahay yidhi akbaru cinda allah ilaahay agtiisa waxay ka wen yihiin xurmo la jebiyey oo bilaleeyin waa wuu kusii fasiray haddana afartan oo la jebiyey maxaa magacooda la yidhaahdaa haddii dadka muslimiinta la laayo dalkoodana laga qabsaday iyo muqadasaadkooda diintoodana loo diiday inay ku dhaqmaan ama ummadaha gaadhsiiyaan maxaa afartaa la yidhaah afartaa fitna la yidhaah afartaa arrimood oo ummadda lagaga quusto oo laga dhirbaaxo waa fitnada dhabta ah waalfitnatu akbaru min alqatl haddaba in lagu dilo oo dagaal iyo jihaad gasho waxaa ka daran in afartan lagaa fitneeyo ama waxaad waayeysaa ciddaa tahay abtirsiimadaadii ilaahagii baa lagaa eryayaa diintaadii ama soo badheen waayahay talow dagaalkaasi wakti ma leeyahay ayaa iyana isweydiin leh ama fitnadaas haddaanu mar wax iska celin oo mar labaad wax iska celin talow ma nadaynaysa taana sir buu ilaahay kuu sheegay alcaliimu alkhabiir ilaahay aan waxba ka qarsoomayn hadda waxa jooga iyo wixii hore iyo waxa soo socda isaga waa isugu mid walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istadaacuu idinkana dayn maan inay idinla dagaalamaan oy diintiina idinka saaraan hadday karaan marka yay karine ilaahay wuu idin berber taagan yahay idinkuna sutida u hayo oo jihaadka oga wey zaala waa ficlu yufiidu اlistimraara wاtajadud fi lmustaqbal waa istimraar walaa yazaaluuna macnaa waa mustamir hunaaka xarbun caqadi dagaal caqiidaa soconay mid gaalada waxay idhahdaan casrigan aynu joogno waxyaabaha dunyada lagu dagaalami karaa ma aha waa inaanu noqon dagaal diineed ama gaalada iyo islaamka waxay ku dagaalamayaan ama wadamada ku dagaalamaya waa inuu noqdaa dagaal maslaxadeed dagaal xuduudo waxyaabahaasumaa la ogoliyay laakiin dagaal diimeed lama ogolaa waa afka taasi waa afka arrimuhu markay sii adkaadaan madaxdooda dhegayso oo tasriixaadkooda iyo bayaanaadkooda dib ugu noqo markaasaad heli marka xarbi caqadiyaa jira oo inta labadaas kufriga iyo iimaanku jiro iyo labadooda ehel way soconaysa la isdayn maayee dee in lagugu jihaado iska lagula dagaalamo iska fadhido iyo inaad wax iska dhiciso unbaa ilaahay addoommaha taasuu kala hadlay xataa yaruduukum can diinikum in istadaacuu waxaa markaa nasku ina baraya shayga loo yaqaano fiqha almuwaasanaat fiqiga la yidhaha fiqhu lmuwaasanaat in dadku aragti dheer ay yeeshaanoo waxay miisaami karaan oo shayga la yidhaahdo caqliga waa ka caatifadda toosiya caqligana cilmigaa toosiya marka cilmigan samaawiga tilmaanta ilaahay iyo caqligu ay salaan caatifadda rabta raaxada bilaa mustaqbalka ah ee bilaa sharafta ah way ka xoog badanayaan waxay markaa kari karaan caqligaas cilmiga samaawiga uu hagayo inay muwaasanada sameeyaan muwaasanada hunaaka saqiiru wa kabiiru wa akbar u fiirso dunuubtii waxay leedahay dembi yar iyo dembi weyn iyo dembi sii weyn idan markaa waxaa loo baahan yahay inaynu wax miisaami karno dadka culimada dadka siyaasiyiinta dadka aqoon-yahankaa almuwaasanaةu bayna almasaalixi wاlmafaasid khadawaadka la qaadayo tallaabooyinka in laysu miisaamo dhibkiiyo dheefta wاlmuwaasanaةu bayna almasaalixi nafsiha masaalixda laftigooda in laysu miisaamo maslaxad weyn iyo maslaxad yar aslaxu lmaslaxatayn
iyo in la isu miisaamo almuwaasanatu bayna almafaasid dhibaatooyinka laftigooda in la isu miisaamo yurtakab biakhafi almafsadatayni biijtinaabi akbarihima dhibaatada yar baa loo bareerayaa iyadoo dhibaato weyn laga cararayo kabiir baa lagu yidhi qul qitaalun fiihi kabiir xagga dambena maxaa lagu yidhi intaasi akbaru cinda allah waa kabiir iyo akbar baa kuu yaalle kabiirka iska xamil si aad akbarka u difaacdo kabiirkaasoo in naftaadu baxdo maalkaagu uu baxo ehelkaaga dhib soo gaadho adigoo jihaadka ku jira intaasoo dhan waa kabiire iyo xurmadaasoo la jabiyaa waa kabiire xamil si aad akbarka iyo afsadka uga hortagto marka dhibaato yar waa la aqbali karaa si dhibaatooyinka waaweyn looga hortago dhakhtarku markuu qofka daweynayo dawadu waxay leedahay sarafagti ama dhibaatay leedahay laakiin dhibka weyn buu ku daweynayaa cudura markuu camaliyad iyo qalliin samaynayo suuxdin buu u baahan yahay xanuun badan buu leeyahay dhaawac buu leeyahay maxaa dhibkaa lagu xamilayaa dhibkaasi waa kabiir laakiin akbar baa jira cudur dilaaya ayaa laga hortegaya marka arrimahaasoo dhami dad badanoo ama tallaabooyin qaldan qaada ama turunturooyin ku dhaca ama mustaqbalkoodu dhicisuu noqdo oo siyaasadeenna leh oo arrimaha diinta leh oo arrimo dacwadeed leh oo arrimo future leh mustaqbal leh waxaasoo dhan waxa keena muwaasana la'aanta macnaha in tallaabadaad qaadaysaa tiraa maxaa talow dhib ku jira maxaa dheef ka dhalan kara maxaa dhib ummadda iyo dalka iyo diinta iyo nafta ugu jira waxaasoo dhan rasuulku sala allahu calayhi wasalam taasuu ina barayaao dee munkarka markii uu ka hadlayay waa kii darajooyin u qaybiyey marka la suulinayo qof qowl ku kara qof ficil ku kara iyo qof qalbiga ka diidaya nasku markaa wuxuu ina barayaa caqliyaddu dadka u ballaarinaya cilmiga samaawiga qofka yaqaana waa qofka istaraatiijiyad dheer eegi kara wey ayaan darro weyn waxa ah adduunka inaad iimaan la-aan kaga tagto intii aad iimaan yeelatay kadib waman yartadid minkum can diinihi fayamuut wahuwa kaafirun faulaa'ika xabidat acmaalahum fi dunya waalaakhira qofka murtadka la idhaahdo wixiisoo dhan way bureen hadduu ilaahay caayo diinta caayo rasuulka caayo ama islaamkaba ka baxo wax alla wuxuu hayay cibaadooyinkiisii horena way bureen wuxuu imika hayaanoo baatil xataa weysadiisaa jabaysa murtadka si aayaddaa ilaahay uu ku caddeeyey waana ahlu naar marka halkaa waxaynu ka faa'idaysanaynaa shayga loo yaqaano jihaadku in xigmadi ku jirto sidaa qur-aanku inoo soo bandhigayo mashruuciyadiisa hunaaka xikmatun fii mashruuciyati ljihaad jihaadka ilaahay ummadda uu ku abaabulay asraar badan buu leeyahay taasoo ay kow ka ah tacbiidu nnaasi lilaahi waxda dadku inay ilaahay addoommo u noqdaan u siman siduu boqorkii bershiyanka ama reer eeraan uu ku lahaa asxaabigii wafdiga ahaa u tegey ribciye bnu caamir ji'naa linukhrija alcibaada min cibaadati alcibaadi ilaa cibaadati illaahi waxda waxaanuu nimi si addoommaha is-addoonsanaya aanu ilaahay uga dhigno kuwa siman ile ninkaa ula hadlaya dadba addoommo u ah oo u taagtaagan sida qoryaha oo waa loo sujuudaya mar annaga waxaan doonaynaa buu dadku inay ilaahay u sinmaan oo is-addoonsiga laga baxo raddu ictidaa'i almuctadiin asraarta waxaa ka mid ah kuwa had iyo jeer muslimka ku xadgudbaya dee ragidaa kuguga daaya baa le ilaa uu wuxuu kugu daayo kugu arko maanta ummadda islaamka awoodaha u sarreeya ee ummaduhu ku diriraan waxay dhahaan casrigan aynu noolahay awoodda nuclearka dowladda le unbaa dowlad weyna bay dhahay haba iska faqiir ba hata hadday doonaysa laakiin mar hadday wixii u dambeeyey luqaddii u dambeysay lagu wada hadlayay mar hadday hayaan yuctabar annaha dowla kabiira baakistan imika waxaa loo tixgelinaya dowladaha waaweyn kaasi markaasi wuu inaga fakaday cabdilqadiir ninkii la odhan jiray markaa uu la soo baxsaday wuu inaga fakaday bay dhahay marka wixii ka dambeeya si aanad meelaha waaweyn u gaadhin halka hoosaa lagugu haynaya waqaatiluu fii sabiili illaahi aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu kuwa idinku xadgudba dee idinkuna xadgudubka ka hortaga isaalatu lfitnati can innaas inagaan arkayno oo dee dadka si aanay u fidnoobin haddii dadku diintu ka fitnowdo oo dadku ka fitnoobo oo dalku ka fitnoobo oo muqadasaadku ka fitnoobaan nabadgelyo kasta ha haystaane danba nabadgelyadu way uga lumi waxaa ka mid a ximaayatu dowlati alislaamiya dowladda islaamka in la ilaaliyo
ummadda islaamkee wada jirta ee maamulku u dhisan yahay ee kala dambaynta leh in dowladooda la ilaaliyo iyo jiritaankooda sidaa daraaddeed baa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam si aftuuba ama ikhtiyaala buu ku dilay ninkii la odhan jiray ibnu abilxuqayq iyo kacbu bnu ashraf niman waxay ahaayeen rimanaa nebiga iyo dowladda islaamka oo mu'aamarad waday oo shakhsiyaad meelo fadhiyay ahaayeen kamaan dowstiisiibuu u xulo wuxuu hi halkooda isdultaagoo kusoo dila dowladda islaamka kusoo duulaya sidaa horeba aynuu soo sheegnay ummadda islaamku intan ay awoodda leeyihiin waa la tixgelinayaayoo haybad bay leeyihiin turhibuuna bihi caduw allahi wa caduwakum cabsi baa jirto dee nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waa layga baqdaa waa layga haybadaysanayaa bil cadowga ii jira haddii lagugu tashan waayaba adoo halkaa fadhiya khalaas inaad jirto iyo in kale aanay maaragtay farqi lahayn wax ku xisaabtana ma yeelanaysid kolkaa ina min alkhuyalaa maa yuxibuhu allah fakhtiyaalu rajuli cinda alxarb xaragada iyo kibirka qaarkiibaa ilaahay uu jecel yahay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam isqaadqaadka qaarkii iyo maaragtay inuu qofku awood muujiyo marar baa la ogolaya waa marka cadowga la is hortaagay buu nebigu uhi markaad cidle iska joogtana inaad isqaadqaaddo oo si noqosho u socoto sax maaha marka xaaladdaa dee waxaa loo saamaxay indhaha shisheeyaha wax la tusayaa asraarta waxaa ka mida kashfu lmunaafiqiin watamxiisu bayna annaas dadku had iyo jeer markan iska nabadda nin waliba wuu faanaya nin waliba laabtuu garaacaya nin walba bala ka dhacaysa cerkaasuu maraya laakiin rag waxaa la kala baranaya qof lagu talageli kara iyo qof kale maalinta wax dhacaan ayaa qofna cv-giisa ama taariikhdiisa mid wanaagsan ay noqonaysaa midna mid xun xifdu lcaalami min alfasaad haddii ummadda islaamku awooddii wanaagsaneed ay leeyihin iimaanku hogaaminayay adduunyadu waalan mayso adduunyada iminka gubanaysa qaylaysa adduunyo biir qabtay noqonaysa walowlaa dafcu llaahi الnaasa bacdahum bibacd lahudimat sawaamicu wabiyacu wasalawaat wamasaajidu yudkaru fiiha smu llahi kaiira walowlaa dafcu llaahi الnaasa bacdahum bibacd lafasadat اlأrض haddii aan dee muslimkaa awoodda lehee shisheeyaha dhulbiiska hor jooga aanu jirin meel waliba kharibmi lahay wasadaqa allah shuhadaa baa imanaya oo darajadoodii gaadhaya oo dakhliga muslimiinta waxaa ka mida isaguna shayga loo yaqaano khaniimada oo waxaad la yaabtana maha dee haddaad tidhaahda khaniime ah ama xoolaha dadku mala iska qaadqaadanaya kuwagaa la qaadan dee kuwagaa la qaadan oo la qaybsan doonaayo marka meel istaraatiijiyada udhigayaan waxa odhan waddankaa waynu qaxinaynaa kow waana la burburinayaa waa laba hadhowtana waa dib baa loo dhisayaa marka qofka inta hore ka qayb galaaba inta dambe khayraadkiisa iyo qaniimadiisa in la qaybsado ka qaybgeli doona almuhim marka qaniimaduna qaybahay ka mid waa nebiguna wuxu uhi wajucila risqii taxta dilli rumxi asraarta iyo fawaaidkaasaa ku jira almuhim markaynu soo ururino wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun ilaahay baa inala hadla wuxuu uhi waxaan idiin tilmaamayaa waa waxa dantiinaahu marka wax badan oo maanta la sheego oo dee ummadda islaamka lagu harawsado hadday dhegaystaan ka ilaahayna diidaan iyaga arki doona waxa ay ka dhaxlaan laakiin midhka waajibkaahi waxa weeye ilaahay wuxuu inoo tilmaamaya inaynu u dheganuglaano kuna dhaqanno wallahu subxaana wa tacala aclam يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان